الرحمن الرحيم إلهي ما مهده ما هذا البكر أراكم الله ما قع وفتقا في السماء لا يجوعه يوم مد السماء لا نورن وحن كم هذا علينا سودوينتي دعتوا يلا هاي أسوكي النمو اللاب حدي الشعب حريرته في جيبوتي حكومة ديسا إيا مدحوين وسودويين آدي آدوان ومحطقين وحكرون محطقين جاريدة عاوة حفلة سواء بمشي تدكي فكر كلها يسودويتن يكشفيي يا أنت كسر قيم كشيء آدي أضمان وهذا بين جزاك الله خير. أنت كذب سودويتر ما أنت يا والله الذي يجويك ولا تنبه مغلي وفرحة إن شاء الله مستقبل كنوع حينو بدري مدفعيرة والله بعض الدلوح وضع قبصدان أي هرمرك وداعان هنتذا وداعان عقلي إيه فكرك وداعان أو النقطة ولا رأي سهيلي أو وضع قبصدان أو وضع النور هذا إلهي في مستقبل كنوع يقول تاسو هرب وجرتي ولا سينما دي waxa la isu yahay iyo dadku waxay yihiin waa si xoojin doona daayirta waxaan u sheegayaa tusaya Soomaaliland iyo Djibouti waxay isu yihiin Allah yarxamu Xaaji Xasan Buureed madaxweynihii koowaad ee Djibouti wuxuu ku dhashay Geeriso oo Soomaaliland madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland Siiraayo isagoo Djibouti ku soo socda iskuulka laga qoray Sayla madaxweynihii ka horeeyay daahir riyaalo ka ahayn hooyadii waa reer Djibouti anigu Djibouti baan ku koray marka dadku intay isu yihiin intaas ay kaga filan dhalinyarada imka laga yaabo in technology-gu ku fooriyay computer-ka iyo mobile-ka iyo internet-ka waxaan u sheegayaa Djibouti iyo Somaliland geed qof iyo qoys inay isku mid yihiin si walba aniga markii halkii laga kaxeeyay 9 kiiska meelaha qoladii igaga hadhay halkan waa wada madaxda Djibouti qoladii aanu camuudo joognayna waa wada saraakiisha Djibouti oo channel subagla kamid ah orgaaska deganay يا قار كلام إما كدير لي يجوا بريتان جروبين أنا وارجع عرّية أورمان تبغى كوار كري أو شيخ سعيد كمدي حاجة كلام واسع صور كلام وأنت هاي كبلن بجوبته أوريج جوبته مركا ولا ليه درس كمدي إنه إن شاء الله دل يردنا وحل سويها من باري مستقبل كلام لبض الدم وحلو كنجي دلال وذاقة hawsha iyo fikirka iyo waxqabadka iyo wada noolaanshaha iyadoo oo mid waliba uu yahay dawladdiisii iyo xuduudkiisii iyo sharciyadiisii waxaan idinka baaqaynaa reer Djibouti tihiin shacib iyo dawladba dhowr iyo 20 sanadood ama 30 ku dhawaad Soomaaliyadii hore ee Somali Republic loo jiray oo hadda noqotay Somaliland iyo Soomaaliya ay dhibaato iyo colaado iyo hawl ku jireen qolada koonfureed Somaliland nabad bahaatay aanay tamar badan oo dhaqaale lahayn waxaan uga maadaqaynaa reer Djibouti walaalaha Soomaaliyeed meelay joogaan bas ay u gacan qabteen iyo qof kasta markuu Djibouti yimaado uu dareemo inuu guuleeyo taasay dad iyo xukuumadba ka sameeyeen waxaan kula uga maadaqayaa anigu waxaan ahayd jabhadii sanad waxa markhaati madoona dadka Djibouti madaxweynahooda maanta jooga General Zakariye inay taageerada ugu badan ee nabadgeliyo iyo nololba ahayd soo ay u geysteen SNM iyaga shacabka Djibouti waa taariikh aan dafri karin taariikhdu iyadaas qorta ووحكو لغا تاريخنا ووحي لسوها
taana Somaliland oo dhan maanta way idin haysaa Somaliland oo markaa laga yaabo in dhexdeeda colaad ka jirtay markay ka heshiiyeen ciddii u soo gurmatay ee nabadooda wax ka tartay iyo ciddii halganka markii ay dawladda dagaalamay wax ka tartayba waa la xusuusayo waa taariikh dadku waxay soo yeeshay sheegaysa waxa kale oo idin sheegaya taariikhda da'yarta markii aanu dalka soo galnay haddaanu asana ahayn oo guri jirin oo raashin jirin oo biyo jirin oo cusbitaal jirin oo meel askari station police jirin oo meel tuuga lagu xidhay ka wax dilaa aanay jirin waftigii ugu horeeyay dal aanu taagnay Djibouti bay ahayd aniga iyo diqsi iyo ismaa aniga yiraahdo Umar Boobe Xandulle duqsi baan hogaaminayay Allahu naxariista Xaaji Xasan Gureed baan ugu tagnay wuxuu u ogolaaday markiiba maxay ku daran buu biyo la cabaan wali tayankii deeb la mashiinada la geeyay halkan ka qaad mashiinkii horeeyay leerka shay ka ahaa kambarigii la oran jiray Sotelco ee isgaarsiinta ugu horeeyay waxa uu ahaa telefoonkii hore ee Djibouti ee markaa la bedelay maalinta rarnay waa taariikh taala iyo dadku waxay soo haayeen oo aan la iga sheekaynin goobjoog ka ahaan waxa ka horeysay marar badan oo Djibouti dhibaato ka dhacday oo Hargeysa soo gurbatay oo ciidamaadkii ilaa iyo ka soo qaatay harbi ilaa iyo ka soo qaad buduryeelkii markastoo la jabo saasa la soo ahaa dadku waxay soo ahaayeen intaas oo iga xasuus walaalayaal waxaynu nahay maanta dad mid ah xagga dhaqaalaha iyo horumarka Djibouti maanta ku horeysa insha Allah Soomaaliya dhan way idin gurban kuwa soo sakeeyay walaalaatiina xoog badan u soo gacan qaban doonta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh